runtii waxaan isleeyahay qaranka iyo qabiilku isma gelayaan Somaliland qabiil intaynu ka soo gudubnay baynu u gudubnay qaran qof kasta wax tabanaya iyo qof kasta wax doonayana waxaan u samaysanay nidaam dimuqraadi ah oo xisbiyo badan haddaad garan weydo waxa doonaysa kaad ka weydo maahe ee fartaada ka dhisa farbaad ku ridaysaa ka doonaysa danahaaga fulinaya dooranaysa halkaasaynu marin waxaanu u noqonnay inaynu tabasho qalad iyo sax wuxuu doonaba hal lagu tawday in la yiraahdo kii wax tawdaaba jabhad baa samaysanay qaranimada jiri mayso jabhad samaysantaana ninna afar cisho banaan ma joogi karo haddaan dhaqaale aanu hayn waxaan isleeyahay mushkiladda ugu badan dadka ugu ladan ee Somaliland iyo nabadgelyada ku faa'iiday baa ayaa sabab u ah waayo ninna meel ma joogi karo haddaan dhaqaale hayn ciidanna meel ma joogi karo haddaan dhaqaale hayn mid kalena waxa weeyaan waan leenahay dhaliisha haddii cid la dhaliilayo oo cid eedaysan tahay xukuumaddu waajibaadkay qaadanaysay gobolkaas Sanaag waa tiina hor keentay talaabooyinkay qaadayso golayaashu iyaga diiday wixii ka yimidna golayaasha intii diiday baa ay ka soo horjeesatay in talaabo laga qaado oo dawladnimo lagu muujiyo waxaan iskarab wadnaa qabiil iyo qaran baan iskarab wadnaa isma gelayso mid labaadna isma gelayso Somaliland waxaan isleeyahay dadkii runta sheegi jiray baa sii yaraanaya haddii wax walba runta laga sheegi waayana waxa la wax loo jiray ma jiro oo mil kurkii baynu dhaynaa isma gelayso qaran baan hayo iyo jabhada sameynayna aqliyan iyo sharciyan midnaba kuma munaasib aha wax la qaadan karana ma marna hoostay ka bislaatay hoostaa oo cidda u dhow baa qabata oo tira war waxaan wadadan aad maraysaa way qaldan tahay joog oo soo qabata hadday si Somaliland noqoto intuu nin waliba afar ciidan meel loo baxay Somaliland ma kula gorgortamaya ee halayla hadlo reeraynu nahay oo reer waliba maalin u bixi doona uma baahnin inaynu sunna cusub iyo dhaqan cusub oo Somaliland burburkeeda horseeda inaynu sameeyno waxaan leenahay cidda baxday ee maanta jabhada sheegaysa aanu jabhada oran maayay inamada meesha jooga looma awood waayo in qaranku talaabo uma awood waayo waxa laakiin la rabaa ciddii runta u sheegi lahayd oo lahayd waa qaldan tahay soo gal qaranka ku soo noqo wadar iyo waaxid wadarta waa واحد كوالا عفوا waxaan isleeyahay dadkii runta sheegay baa dhamaan